الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم نفسي بتقوى الله تعالى. walaalayaal waxaynu ka soo hadalnay khudbadii hore aqoonta diinta ee la qaadanayo ama barashada cilmiga sharciga midhiisa iyo faa'iidadiisa waxa kamida wacdiga iyo waanada iyo wax sheega. haddii dadku ay wax bartaan ama wax garanayaan ay waxba sheegi waayaan, waa cuqubo iyo calaf la'aan iyo ciqaab laga dhaxli karo. sidaa daraaddeed mowduuceena ama khudbadeennu waxay ku saabsan tahay doorka muhiimkay diinta ku leedahay waxa la yidhaahdo alwacdu. wacdigu waa waanada iyo wax sheega, dadka wax wanaagsan loo sheego. haddii dadka waxun loo sheegana waana lama yidhaahdee waxaa la yidhaahdaa fitno iyo dadkoo la ibtilaynayo la aafaynayo. shaqada iyada ahi in la qabto oo dadka la waaniyo xukunkeeda marka la eego ama miisaanka shareecadu saartay waa waajib. sidaa daraaddeed baa marar badan diintu ay nagu waajibisay waanada wax la waaninaya dadka wanaagga loo sheegayo. waxaa kow ka ah khudbaddan aynu wadno usbuucii ama toddobaadkii dadku markay meel deegaan ku yihiin, haddii dadku intay isu yimaadaan aanay iswacdiin oo aanay iswaaninin oo ilaahay aanay isxusuusinin oo quluubtooda aanay baraarujinin, waa dembiilayaal, qalbigoodana shar baa dabooli. waxaa ka mid a sanadkii hal mar in dadka muslimiinta ay isugu yimaadaan beytullaahi alxaraam iyo xaramka oo halkaa ay isku waaniyaan khudbaddaa weyn ayaanta carafo, iyadoo sidii jumcahoo kale loo tukanayo. waanadaasi waa waajib. si guud ahaaneedna dadka muslimiintaa waanadu waxay ku waajibtaa marka ay wax xun arkaan. saa daraaddeed baa rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam: man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaani. qof waloo xumaan arkaaba inuu diido, walow dumarba ha ahaadee waajib bay ku tahay. ilaahay markuu la hadlayay dumarka waxa uhi: wadkurna maa yutlaa fii buyuutikunna min aayaati illaahi waalxikma. xaasaskii nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuxuu faray waxa wanaagsanay nebi maxamed ka maqlaan inay dadka u soo gudbiyaan oo guryahooda ay soo dhaafiyaan ay waaniyaan. mar kale waxa uhi: waqulna qowlan macruufa. hadal wanaagsan dadka u dhaha oo ku waaniya. saa daraaddeed waxaynu arkaynaa qof waliba inuu kaalin ku leeyahay waanada iyo wax sheega. waxaanaynu mowduucan u soo qaadannay dad badan baa ka xishooda casrigan aynu joogno waanada, oo laga yaabaa inuu idhaahdo dee wadaadadunbaa wax waaniye, anugu ma wadaad baan ahay, madax baan ahay, aqoon-yahan baan ahay, oday baan ahay, dadkan afaarahooda geli maayo, arrinkaygiina maaha kaasi. inkaaraha aakhiru zamaanka soo kordhay ka midii dhaqankii dadka muslimiinta mu ahaynka ah ee qof waliba wuxuu isku dayi jiray bulshadiisa inuu kelmad wanaagsan gaadhsiiyo, waxa xunna u diido. sidaa daraaddeed ayaa dhaqankeenna wax badan da'yarta uu sixi jirayoo dadka jaarka ah iyo ehelka iyo aqaaribta iyo asxaabtu markay arkaan oday qalloocan ama islaan qarriban ama inan iyo ilmo si xun u soconaya, shaaricaa lagu toosin jiray. oo bulshada dhexdeeda qofku wuxuu ka xishoon jiray hadduu waxaa la yimaado in la diidayo oo aan la oggolaanayn. laakiin dhibaatada dhacdayba hadda waxay noqotay dhaqankii shisheeyu intuu yimi inuu qof waliba xumaanta arko, waanadana ka xishoodaba. baabkani waa baab ballaadhan, qiimihiisana leh. xukunkiisa haddaynu soo sheegnay waxa uu leeyahay wasaa'il iyo waddooyin la maro. waddo kasta oo dadka aad ku waaninaysood wanaagga ku gaadhsiin karto oo wacdigeennu ku hirgelayaa waa muhiim. waxaa ka mid a qowl inaynu ku gaadhsiino sidii rasuulladuba ay ahaayeen. waxaa ka mid a qoraal. waxaa ka mid a ishaaro, dadka ishaaraad lagu siiyo. casrigan aynu joogno waxaa la adeegsadaa agab adduunyada wax lagu gaadhsiin karo oo aynu aragno dad badan xumaanta ay u isticmaalaan. markaa wasaa'ilka iyo hababka aynu uga faa'iidaysanayno
kelmadda waanada sheegiddeeda ayuu ka mid yahay baabkaas. haddii la isu sheegi waayo waxa wanaagsan waxa xun baa soconaya, dadkuna waa sababaha ay ku halaagsamaan ay ku baaba'aan. casriganna waxaynu ognahay mucallimiin badan oo sharka dadka baraya oo halkii laga waanin lahaa iyagu xumaan u sheegayo ku abaabulaya inay badan yihiin. sharkaa waa in la helaa khayrkii ka hortegi lahaa. qodobkaynu isdul taagaynaa waxa weeye 10 arrimood ama 10 faa'iido oo waanada dadka la waaniyo waxa fiican loo sheega ay leeyihiin, si aynu uga mid noqono 10ka arrimood dadkii ka faa'iideysan lahaa. ugu horeyn faa'iidada koobaad ku jirta wacdiga waxa weeye waa wadiifadii rusushu waxay ahaayeen wucaad. ilaahay baaba subxaanahu wa tacaala isku sifeeyey waacid, yacidukum bih. ilaahay saasuu idinku waaninaya. marka ilaahayna waa waacido waa ka dadka wacdiya, rasuuladuna wacaad bay ahaana waaniyayaal bay ahaayeen iyo wax sheegmada wanaagsan kuwa u taagan. qul haadihi sabiili adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii. nebi maxamedow dadka waxaad gaadhsiisaa ood ku tidhaahdaa buu ilaahay yidhi, dariiqaa toosan baan anigu dadka ugu yeedhaya oo aan ku waaninaya aniga iyo ciddii raacday. marka qofka doorkaa rasuullada qaadanaya dadka waaninaya waa atbaacdii iyo bahan nebi weeye, nebiga bahdiisii weeye. waxa labaad oo ka mida faa'iidada uu leeyahay wacdigu, qofka dadka wax wacdiyaya ee hanuuninaya welibana ku sabraya waa qof han weyn oo hawshiisu tiisii ay soo dhaafto ta dadka gaadhay, kaasaana mutaystay inuu madax noqdo. ilaahay baa reer banu israa'iil intoodii wanaagsanayd buu ka warrama wuxuu uhi wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun. reer banu israa'iil madax baanu ka dhignay markii ay dadka hanuuniyeen, iyaguna hanuunsanaadeen kuna sabreen. marka qofka aan dadka hanuuninaynin ma istaahilo hogaamiye inuu noqdaa laga fahmaya aayadda. wacdigu inaad dadka wacdidooda waxa wanaagsan la soo taagan tahay oo lagugu yaqaano oo daacad kaa tahay, qaybaha jihaadkay ku jirtaa. inaad xabad ridayso cadowga ku ridaysay la mid. ilaahay baa wuxuu uhi wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa falowlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifa liyatafaqahuu fi ddiin waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun. jihaadka ayaan loo wada bixina qola dagaalka cadowga ha u baxdo, qolana dagaalka jahliga ha u baxaan oo cilmiga ha bartaan, si ay dadka ugu digaan ha dhowto, diintana ay u fahmaan. marka dagaalkii jahliga waxaa lagu hirgelinayaa in dadka la waaniyo. rabbuna sidaa hadduu u sheegay nebiguna sala allahu calayhi wasalam saasuu xadiidka inagu caddeeyo waxau idhi akbaru jihaad kalimatu cadlin cinda sulطaanin jaa'ir calaa macna xadiid. jihaadka u weyni waa erey xaqa oo cadaalada oo cid madaxoo laga baqay agtiisa laga yidhaahdo. arrintaasina arrin weyn weeye. waxaa laga yaabaa qofkii xaqa lagula dhici kari waayo markaad kelmaddaa u sheegtay inay qalbigiisa gaadho xumaantii uu joojiyaba. qur-aanka ilaahay wuxu uhi wajaahidhum bihi jihaadan kabiira. jihaad weyn ku gal qur-aanka. waynu ognahay oo dee madaafiic la ridaya maaha qur-aanku, laakiin si kale uu madaafiicu yaho marka dadka lagu waaniyo qofna qalbigiisu gaadhayaa, qofna wuu qancinayaa, qof kalena xumaantii buu ka joojinayaa. waa shay cudurdaar inoo noqonaya. lagu cudurdaari maayo haddii xumaanta iyo wanaagga intood aragto adigoo kelmad kule aad ka gaabsato, adiguna dembiilaad. reer banu israa'iil ilaahay culimmadoodii wuxuu ku canaantay hadday dadkii xumaa waxaa sameeyeen intii wax garanaysay maxay waanin waayeen baa ilaahay lowlaa yanhaahum alrabbaaniyuun can qowlihim اlithm. nimankaa culimmada ahay maxay ugu diidi waayeen dadkaa xumaanta samaynayey xumaantoodii maxay ugu diidi? waa canaan weeye. marka qofkii kelmad lihi inuu dadka kelmaddiisa yidhaahdo kuwa dembiga samaynaya u diido ayaa cudurdaar aad ku heli karaysa, haddii kale lagu cudurdaari maayo. waa iifaa licahdi illaah. ilaahay ballantiisii baynu oofinaynaa uu diinta dhexdeeda inaga qaado inaynu dadka wanaagga gaadhsiino aynu wacdino. waid akhada allahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunnahu linnaasi walaa taktumuuna. kitaabka dhexdiisa ilaahay wuxuu reer banu israa'iil culimmadii kaga qaaday, innagana ballan inaga qaaday inaynu dadka wanaagga ku wacdino
oo aynaan ka qarinin. arrinta lixaad aynu ka faa'iidaynaa wacdiga waxa weeye waa dalaban liducaa'i rasuuli sala allahu calayhi wasalam. waxaynu raadinaynaa nebi moxamed ducadiisii uu u duceeyey nebigu qofka dadka waaninaya ee waxa wanaagsan gaadhsiinaya. nadara allahu imra'an samica mina xadiidan faballaqahu ilaa man lam yasmachu faruba xaamili fiqhin laysa bifaqiih waruba xaamili fiqhin ilaa man huwa afqahu minhu. allaha iftiimiye buu nabigu yidhi, allaha iftiimiye, ilaahay ha nuuro qofka intuu xadiidkiiyo cilmiga naga maqlay dadka gaadhsiiyey. waxaa laga yaabaa qof la gaadhsiiyey inuu kii soo gaadhsiiyey ka cilmi bata buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam. marka waa duco nebi oo dadka waanada u taagani ay helayaan. waxaa toddobaad oo faa'iidada ku jirta ay tahay xusuulan lisalawaati alkhaaliqi waalmakhluuq. salliga ilaahay iyo salliga khalqigaba waxaynu ku helaynaa inaynu kaalintan u taaganno qof waliba kelmadda wanaagsan iyo waanada isu xil saaro. nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiid saxiixa waxa uu ku yidhi ina allaha wa malaa'ikatahu xata namlata fii juxriha wa xata alxuuta fi lbaxr layusalluuna calaa mucallimi nnaasi alkhayr. ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo xataa quraanjada godkeeda ku jirta iyo xataa xayawaanka faraha badan ee badweynta ku jira intuba waxay ku salliyayaan qofka dadka khayrka baraya. salliga ilaahay duco maaha oo ducadu waa baryo, ciduu inoo sii baryayaana ma jirto, isagaa la baryaa. sidaa daraaddeed waa naxariis iyo dembi dhaaf. salliga khalqiga kalena waa duco ay ilaahay inoo baryayaan dembi dhaaf iyo naxariis. darajadaasaa lagu gaadhaa kaalintan in la buuxiyo la qaato. arrinta sideedaad waxa weeye wa firaaran min allacna. nacdashii dusha looga tuuray dadka cilmiga iyo waanada ka fog baynu kaga badbaadaynaa. rasuulku wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam addunyaa malcuunatun wa malcuunun maa fiiha ilaa dikru llahi wamaa waalaahu wa caaliman wa mutacalliman. adduunyadu way nacdalantay, wixii ku dhex jiraana nacdashaasaa saaran ilaa xuska ilaahay oo waanadani ka mid tahay iyo wixii uu koobsado mooyaane iyo qofka cilmiga baranaya ka baraya. idan markaa si aynu uga badbaadno cadhadaa ilaahay inaynu kaalintaa qaadanaa waa muhiim. arrinta sagaalaad walwacdu qad yakuunu axsana min almaali waalwalad. waanadaa dadka gaadhsiinaysaa aakhiro way kaaga wanaagsanaan karaysaa dadkaaga iyo duunyadaada way kaaga fiicnaan karaysaa. nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu inoo sheegay qofku markuu dhinto dee 3 arrimood baa anfacaya. cilmigii uu dadka baray ee dawaanada uu ku gaadhsiiyey iyo cuudkii xalaasha ahaa ee u bixiyey sadaqada u ahaa iyo carruurtii u soo ducaynaysay. waxaa iska macruufa sadaqadu wakhti bay leedahay way kaa dhammaan karta, carruurtuna way kaa dhiman karaanoo ducadooda way kaa joogsan kartaa, ta cilmigu way kuu socon. idan markaa cilmigii iyo hanuunkaa dadka gaadhsiisay wuu ka cimri dheeriyey carruurtii iyo maalkii. nebigu wuxuu xusay calayhi salaatu wasalaam isagoo inagu dhiiri gelinaya qofka la kaban karo sidiisoo kale ayaa kaa dhiga aada odhan karto waa qofku ilaahay maal xalaala siiye meel khayr la ku bixinaya. iyo ka labaada warajulun aataahu allahu alxikmata fahuwa yaqdii biha wa yucallimuha. iyo qof intuu ilaahay xikmad iyo cilmi siiye dadka ku xukumayo baraya. nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu la hadlay cali bna abi aalib allaha ka raali noqdo. wuxuu hogaaminayaa u anbabaxayaa dagaalkii khaybar iyo yuhuuddii la kari waaye. miyaan ku daldalaa waan la dagaalamaa buuhi ilaa intay inagoo kale noqonayaan. nebigu wuxuu siiyey arrintan buu u sheegayoo wuxuu uhi laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri nacam. geela cascas waxa kaaga fiican inuu ilaahay qof qura sababtaada ku hanuuniyo. marka hadafku waa hanuuninta ee maaha dadka oo la laayee hadday hanuunaan la dagaalami mayna buu nebigu leeyahy sala allahu calayhi wasalam. waxa uu markaa inagu baraarujiyey nebigu xoolo badan oo la helo hanuuna dad gaadhsiisaa kaaga fiican. hadiyad badan oo dadka siiso adigoo hanuun u fidiyaa kaaga qiimo badan. arrinta tobnaad waxa weeyaan
كل من تهديه في ميزان حسناتك تذكر هنونينيس يا الحق كهر مرينيسيد جارسينيس إلهي وحكو صار يا ميزان كحسناتك حديث صحيح مسلم كسرنا النبي صلى الله عليه وسلم وحولي من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة قفكو هدودتك هارون كوغيرو أو نقضى قف واندي سواي بدنتهود واندي ساسيدتكو أي كسو هارونان وح الله وحي إساق سببتي سكسو هاروني عمل كي سميان أجري كهلان إلا أكبو إساقنا إلى هاي سينايا إيادو مدنا آنو وحبك الناقصين وانو كرين من سيدو كلا قفك دادك هالليا ودادو دونبا هومري وح الله وحي هالليا هلاق أي هلان يدنبق أي هلان إلا أكبا إساقنا إلى هاي دوشا كساريا محابة داكو قلنا يو بوراها كساريا نارها قلنا ودادا في عنيا وناقنا بادركيس طبعا كفائدين كسو قادن كرنا فائدوين ككتشرا وعدك إيا واندا إيا وحشاك على جابا كلمة دي رئيسانيس إن قف كسو هنونه إن أمدي كسو هنونت إن باو وحيقا ورمي لبان إنو أعيانتا كمدا ولي بس واقعهم بايها ينبو أيا وحن أركيبولي يضدد بدن الدبايا عيانو إسكو صوريان والله الله وحن كل يوم دواتنا ضد مغلاتهين محاي أوران لهايدين محل حل نوجت تجي لهايدين كلمة وناكسن سفر باتين نوحوا يلبولوا وحبرت ضدك الله ترتمع ده صومالي التين نكلا نوحوا يلبولوا أنا وحن كنت رأي إلهي كعب صدع لبدي أري وينفعين بولا أذوقنا محل أوران لهايد بولا نكاس أنا سفر بانك صومالي المهم واحد رميسا قفك مركا قفك كعصب wixii uu yiraahday inuu saameyn ku leeyahay waqtiyada kamida jawlaad dacawiya baan u baxnay miigaasaanu maraynay anagoo dadka waaninayna walaalihii markii dambe warbixinta ka keenaya waxa ay sheegeen tuulooyinkii mid kamidii waanadii iyo muxaadaraadkii aanu siinay daraadeed inay jaadkii ku daayeen oo jaadkii faraha badnaa ee la keeni jiray markaanu ka waaninay xukunkiisii sharciga ahaana aanu u sheegnay inay iska joojiyeen oo go'aan lagu qaatay sidan dadku intay go'aan gaaraan ay yiraahdaan gaafka aan joojino xumaanta aan joojino ayay ugu dareen jaadkana aan iska joojino oo lacagtiisuna haynoo maraxdo marka wuxuuna tusaale u soo qaadanaynaa inaan la yaraysanin kelmadda aad ku odhanayso qofka muslimka ah waxa laga yaabaa haddaynani kaa soo baxda yara qaawan ama si ah oo adeegto oo aad tidhaahdo sida kale waad u fiicantay khayr allah ku siiyo aan ku duceeyo xijaabo inay xishooto dabeetana kelmaddaasi anfacdo mid saacaliyada u daadinayo taqsiinsan oo reerkiina ama saaxiibkaaya ama ka haybadaysanaya haddaad tidhaa waad fiicantay sida kale qof muslima baa tahay laakiin bal wadana iska daa salaadana tuko waxa laga yaabaa inuu yiraahdo marxaban ka aqbalayo ilaahay ku anfacaba marka is ururintan iyo ka xishoodkan diinta aynu ka xishoonayna iyo habrashadan iyo hanyaraantan baynu iska waaninaynaa cid waliba door bay leedahay oo kelmad bay leedahay kelmadeeda markay odhan weydo kaalinteedana qaadan weydo waxyaabaha ilaahay uu kala xisaabtamayo ayay ka mid noqonaysaa allah ina badbaadiyo salafuna saalix ridwaanullaahi calayhim baabkan ma yarayn jirin laakiin aad bay dadka ugu waanin jireen dhowr arrimood haddaynu ka soo qaadanno hadalladii salafka abidarda asxaabi jaliil abuha asxaabta ka mida وحول لها ما تصدق مؤمن بصدقة أحب إلى الله تعالى من موعظة يعظ بها قومه فيتفرقون وقد نفعهم الله بها قفك الصدقة مبحية كتيرون وكون أكسن وعدي وانا قلدي سوفذيو وإلهينا أكو أنفعه صدقة قوة نوا وانا ذا سبولي حسن البصري لقوا يقاني وعدي وانا ذا وحولي هاي اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن رابعا فتهلك واحد نقطة قف علم قبرانيا أما تتكبريا أما وانا ذا دقيسانيا مد أفرادها النقنن وهذا لا أكسمي دونتا سفيان الثوري وحولها لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن يعلم الناس العلم أنقو موغبوري عبادة كتيبضا وكونا أكسن إنه قفك دتك وانا ذي وعدي قال له قادوا وحشيغو حسن البصري مركلا وحولها لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم
haddaanay culimmada dadka waaninaysaa jirin iyo waanadooda wax ku taraysa dadku xoolahoo kale la mid noqon lahaay maxaad ula yaabaysaa bal gaalada wacdiga iyo waanada waaye sidii xoolaha isu orgeynaya sidii xoolaha wax xishooda aan lahayn ee qaawan ee wax lala yaabo mar walba aad ku arkayso sidaasaa ereyada dhaxalgalka ah ee ugu badnaayeen salafka mana soo koobi karna waa tusaale اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تستجاب لها يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة